ahaan madaxda ka socota hay'adda CBD xaafadda iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha iyo laamaha sidoo kale taliyaha qaybta gobolka Mudug oo runtii arrintan nagala shaqeynayay waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin bahda saxaafadda iyo laamaha amniga iyo bulshada xaafadda Garsoor iyo dhammaan inta ololaha nadaafadda ku hawlan saakay farxad weyn bay noo tahay si gaar ah hay'adda CBD oo kaga mahad celinaya saakay hawlgalkan ay runtii nala qabanayso oo halkan aan ka daahfurayno nadaafad soconaysa muddo 18 maalin ka sii badan insha Allah aan rajeynayno sida agaasimo u sheegay waxaan ugu baaqayaa saaxiibada runtii hormuudka ka ah hawshan gaalkacyo inta ka badan bay rabtaa aad baan kaga mahad celinaa nala qabateen runtii dhirbeeris iyo nadaafad hawl iskugu jira saakana halkan ka wada daahfurno labaduba ay bilicda magaalada wax weyn u yihiin aad iyo aad baan kaga mahad celinahay hay'adda CBD waxaan rabaa inaan raahdo bulshada reer gaalkacyood waa xilli roobaad mudanayaal xilli roobaadkii baa soo dhow mudanayaal iyo marwooyin nadaafaduna waa iimaanka barkiis nadaafatu nisfu al-iimaan waxaan codsanaynaa ololaha nadaafadeed igu sawir maaha waxaan ka shaqaynayno wax dhabaarna ka shaqayno waa in maantii aan soo gabagabayna shaqada magaalada gaalkacyo ay dhammaanteed muraayad u ekaato waan ka mahad celinaa runtii dhir beeristii iyo nadaafadii intaba in runtii hay'addu nagu garab istaagto iyo shaqooyin kale badan marka waxaan leeyahay bulshada reer gaalkacyo u istaaga nadaafadda qof walba ha isxilqaamo tiimka shaqada hayana waxaan uga mahad celinaa shaqadooda madaxa fayadhowrka Cabdullaahi Cabdiraxmaan adiga iyo tiimkaaga aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa runtii hawlkarnimada u taagantihiin waxaan codsanaynaa in la dhammaystiro shaqadaas si muglana lagu qabto ballanteena waxa weeye qashinku intuu ku jiro baa cudur ku jira